warbaahinta adduunka ayaa si weyn u hadalhaysa koox Soomaaliya oo ka qayb galaysa ciyaaraha qabowga dunida ee dalka Ruushka lagu qabanayo iyadoo qalabka warbaahinta adduunka gaar ahaan idaacadaha la iska arko ee caalamiga ay ku fogaan yihiin koox Soomaaliya oo matalaysa ciyaaraha qabowga adduunka iyadoo ay tani tahay wax uu dal Afrikaan ah hore u sameeynin waxay noqonaysaa xulkii qaran ee ugu horeeyay ee Soomaaliya u matala ciyaaraha qabowga balse kooxdani oo ka kooban wax ka badan 10 dhalinyaro ah kama aysan imaanin dalka Soomaaliya sida uu sharxayo Axmed Xuseen Cabdi ee waxa ay noloshooda intooda badan ku qaateen dalka Sweden gaar ahaan magaalada Burlenge halkaasi oo heerkulka ka hooseeyo darajada Eber waxayna matalayaan Soomaaliya oo kamid ah wadamada ugu kulul adduunka iyaga oo ku ciyaaraya deegaanada ugu qabow adduunka barafkana ay ku dul ordayaan ciyaaryahanada waxayna u gaartahay wadamada qabowaha ee barafku ka dhaco sida aad ka arki kartaan kaamirada waxa la xiranayaa kaba gaar ah oo lagu sanbirxanayo ama lagu salinteynayo qofka aan aqoonin dheelitirka xarakaadka uu ku soconayo iyo qaabka la isku wareejinayo hadaadan aqoonin waaba dhacaysa iska badaa inaad gool dhaliso garoonka lagu ciyaaro waxa uu egyahay kan kubadda cagta wala 12 ciyaaryahan sida kubadda cagta oo kale laakiin waxa lagu gorfeeyaa ula loogu talagalay in kubadda si miisaan leh lagu socodsiiyo kooxdani waxay ka diiwaan gashan tahay guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportska Soomaaliya balse waxa aasaasay nin ganacsada ah u dhashay dalka Sweden oo lagu magacaabo Patrick Anderson iyadoo ujeedadu ahaa sidii ay isfaham loogu dhaxdhexaadin lahaa ilaa 30 kun oo Soomaali ah oo magaaladaasi degan iyo dadka Sweden u dhashay oo iyagu si weyn u xiiseeya ciyaaraha barafka lagu ciyaaro inkasta oo guushoodu ay tahay fursad lagu tilmaami karo sur dhagax gashay haddana xubnaha kooxdani waa kuwa si dabaaldegaya ka hor ciyaaraha iyaga oo isku haysta inay yihiin horyaalka qaaradda Afrika ee ciyaaraha qabowga adduunka maadaama ay yihiin kooxda kaliya ee dal Afrikaan ka socda ee ka qayb galaya ciyaaraha qabowga adduunka. Next stop, Siberia.